السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو بيجكا كابي أونلاين كوليج أما كابي تكنولوجي and language. waxaad nagala socotaa TikTok iyo YouTube channel kusoo barashada luqadda Englishka qaybteeda grammarka. maanta waxaan si kooban aan kuugu sharaxi doonaa waxa loo yaqaano grammar muxuu yahay. introduction English grammar ayaan ka hadli doonaa. introduction kooban ayaan ku siin doonaa. waxaan ka jawaabi doonaa su'aasha ah what is the grammar, muxuu yahay grammarku. inta badan ardaydu confuse ay ka qaadeen su'aashatan, soo markaa si faahfaahsan si ay luqadaada u dhisanto waxaan si xoog leh kuugu sharaxi doonaa oo deep ah. waxa weeyaan maxay tahay kelmadda ah what is the grammar, muxuu yahay grammarku. kusoo dhawow kaabe online college. fadlan haddaanad soo follow garaynin soo follow garay. sidoo kale haddaanad YouTube kayaga kaabe technology and language aan kusoo biiro subscribe noo saa. soo dhawow mar kale. waxaan hore ugu soconaynaa isla su'aasheena mawduuca waa mahadsantahay haddaad nagu soo biirtay. thank you. mawduucana la garay soo kale noo share garay. what is the grammar, waa maxay grammarku. su'aalahan jawaabahan oo dhan ayaan kaga jawaabi doonaa. marka waxaan leenahay grammarku is waxa weeye the key waa furaha of every language ee luqad kasta. waa kow. talabaad waxaan leenahay grammarku is waxa weeye waa the rule, waa sharciga of the language ee ay leedahay luqaddu ay leedahay. soo kale waxaan leenahay grammarku is a set of rules, waa sharci loo dejiyay for forming correctly, in lagu hagaajiyo, lagu form gareeyo, lagu saxo sentences waxa weeyaan jumladaha in language ee luqadda dhexdeeda. soo kale waxaan leenahay grammarku waxaan leenahay is the art, waa farshaxana oo qurxisan habaysan of letters, xarfo or ama waa study waxa weeyaan waa barashada of the language rules ee waxa weeyaan shuruucda ama sharciyada waxa weeyaan luqaddu ay leedahay. aan ka dabageeyay how many imisa parties qaybood of speech oo hadal ardeeya ka jira in English grammarka dhexdiisa. diyaar waxa jira 8 parties, 8 qaybood ayaa ka jira 8 parts of speech, 8 qaybood ayaa ka jira in English grammarka dhexdiisa. haddaba understanding inaad fahanto waxa weeyaan the 8 parties, 8 qaybood of speech ee hadalka is essential, aad ay daruuri u tahay for improving inaad kor ugu soo qaado, aad ay muhiim ugu tahay oo Englishada saad kor ugu soo qaado waxa weeyaan inaad fahanto muhiim ay tahay. maxaad fahanaysaa grammar naxwihii, sidoo kale maxaad samaynaysaa communication skillski ayaad isla mawduuceenan aad ku baran doontaa. casharada taxana ayaa halkan ku bilaabi doonaa anigoo shirmarka Caraal jaamacadeed la socodsiin doona. fadlan la soco oo nagu soo biir